عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيارتها هالكن يسوق تميد وان سلامي. أنا جو مقعية محمد عبد الداهر على سراد. وحا مانتا هالكن أنو يسوق نميد. أنا جو باشا كومده أما أبسمي أما أوجادين. وحا مانتا هالكن يسوق نميد. arrimaha maanta ka jira gobolka Doolo ama Nogob ama meelaha xuduudaha arrimaha ka jira aanu isugu nimid khaas ahaan gobolka Doolo magaalada Wardheer arrintii ka dhacday maalinta dhaweyd dadkoo dhan iyo caalamkoo dhan ay og yihiin maca dawladdu ay og tahay arrintaas inaanu maanta wax ka dhahno annagoo odayaashii beesha absame yaanu halkan isugu nimid haddii arrintaas aan sii guda galo ama aan sii faahfaahiyo maalintii dhaweyd wixii Wardheer ka dhacay wuxuu ahaa ramadaanka bilowgiisii wiiga ugu horeeyay odayaal waaweyn oo beesha majeerteen inay hadleen sida suldaanka majeerteen ina Cali Baallo oo kale hadalladii ay dhaheen waad maqlayseen Soomaaliya oo dhan baa maqashay saxaafadda la galiyay YouTube-yada iyo Facebook-yada ay ku wada jirtaa arrinta ay ka hadleen annagu haddaanu nahay beesha kuumade ama absame ama ogaadeen ramadaanna waa lagu jiray oo waxaanu tixgelinaynay bisha barakaysan ee ramadaan waanu tixgelinaynay bal inay dhammaato waxaan kaloo tixgelinaynay ninka hadlay ama odayaasha hadlay ee beesha majeerteen ee ku halqabsaday annaga majeerteena iyo qoyska Ismaaciil Gumcadle Ismaaciil Gumcadle waa qoys ka mid ogaadeen ama absame ama kuumada ka mid makaahila Gumcadle qoys hoosoo Ismaaciil la yiraahdo weeye taariikhda hadii la fiiriyana waxaan u malaynayaa inay bahbar tire oo heer xildiid iyo heer wacaysa inay xagga taariikhda ka hooseeyaan oo heer wacaysa la sameeyeen ninkaas uu hadlay waa la arkay waan maqlaynay waana la arkay arrintaas ramadaanka saasaanu ugu tixgelinaynay waxaan kaloo tixgelinaynay bal beesha majeerteen odayaasha hadlay hadalkooda intay dib review ugu sameeyaan sida odayaashaas oo ay u hadleen in ay ka jawaabaan oo raali gelin ka bixiyaan labada arrimood baan anagoo tixgelinay waxa maanta kalifay inaanu isugu nimaadno markaan jawaabtii majeerteenna weynay ramadaankiina uu baxay waxaanu isugu nimid arrinta inaan ka hadalno annagoo beesha kuumade waxaan dhihi lahaa annagoo beesha kuumade ee magaalada Gaarisa North Eastern Kenya waxaan dhihi lahaa haddaan jawaabta aan deegaanka wax yar ka bixiyo isagoo waqtiguna gaabay hadalkan aan soo koobahayo hadalkayguna uu toos ugu socdo suldaanka majeerteen ee ina Cali Baalle uu toos ugu socdo waxaan dhihi lahaa ina Cali Baalle uu yaqaana deegaanka Ceelcad iyo Doolaba waxbuu ka yaqaana taariikhda lama inkiri karo waxaan dhihi lahaa ina Cali Baalle waxa ku filaan waayay qabriyo colow Cabdiyo Tiirare Nagara Daanle Duduma Xarar Kurtunle Cagaar Weyne deegaankii horay 1964 markii Ethiopia aan la dagaalanay haddana aan 77 la dagaalanay haddana 30 sano u dambeysay aan Malla Zanaawi la dagaalanay taariikhda istaba jooga deegaankii ay soo galeen ay ogaadeen ay kala wareegeen yaa ku filaan waayay waxaan dhihi lahaa ha kugu filaato wixii aad maanta meesha degan tahay ina Cali Baallo qodobka kale waxa uu ka hadlahayo maanta waa degmada Wardheer magaalada Wardheer way waxa uu maanta ka hadlahayo hadalladiisina si xan waxaanu ku maqalay inuu yiri magaalada Wardheer waa in ogaadeen galbeed ka maro oo bari marto dhulka taariikhdiisana waa la garanhayaa anigan hadda maanta saxaafadda la hadlahayo Maxamed Cabdi Daahir Cali Siraad waxaan taagnaa oon joogay oon xoolaha raaci jiray sana kontonna waan ku jiraa ama dhowr iyo konton jir anoo Nagara Daanle geela ku raaca oo Tiirare looda ka soo arooriya oo walwaal ka waraabiya maalintii hadda u dambeysana toonta yareed ee Korcas yaa wiilal qoryo guran hayay la yiri madihidin hadalka gabagabadiisa anoo soo koobahaya akhyaartuna iga dambeyn doonto intaana ku soo koobahaya xaaladdu waxay maanta taagan tahay in la leeyahay ogaadeen oo ka guura magaalada Wardheer ka guura
halkaasay taagan tahay waa kaafiya kala dheeri anugu waxaan u arkaa arrintaas inay tahay arrin riyo ah yaan u arkaa arrin gardarro ah oo riyo ah oo gardarro cad ah baan u arkaa waxaa iyaduna gardarro cad ah annaga majeerteen iyo Ismaaciil Gumcadle bal arrintaas bal inta isu jirta fiiriya waxaan kaloo halkan anoo maanta intan ka faa'iideysanahay saxaafadda aan ku dari lahaa dhammaan beesha absame ama kuumade ama ogaadeen waxaan anigu ugu baaqahayaa xuduudaha dadka kuumade ama absame in la sugo ilaahay dadka wuu kala dejiyey deegaan baa la kala leeyahay Ethiopia intaan ku soo joognayna in anagu Ethiopia la dagaalamaynayna wadankii waa lala wareegay Ethiopia maanta waanu heshiinay dagaal dambana ma jiri doono jabhad dambana ma jiri doonto Ethiopia waanu heshiinay intii ilaahay qadaray waa la soo dagaalanay wadankanagii waanu u soo noqonnay wadankanagii waa difaacayna cidna ma dulmayno ina cali baale dagaal buu cilaamiyay laakiin waxaanu leenahay hadalkaas hadal munaasib ma ah annaga ma jeerteen iyo Ismaaciil Gumcadle aad iyo aad baad u mahadsantihiin inta waxaan raacin lahaa dhibaatada ka jirta galbeedka beeshan kuumada ama absame sida raaso oo kale waxa ka jira arrintaas hal la qaboojiyaan leenahay arrintaa hal la dejiyaan leenahay arrintaa nabadgelyaha lagu soo dabaalaan leenahay nabadgelyo ninkii diida hadda isagu wuxuu ka helahayo isagay u taalaa dagaal xabadna wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho wabillahi tawfiiq aad iyo aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh bismillaahi raxmaani raxiim meeshan waxaa isugu yimid maanta meesha kuumade qasadkeeduna uu yahay inay ka hadlaan xuduudaha absame ee dadkii dariska la ahaa uu ku soo xadgudbayo ayaga oo si qiimaysan oo xushmad leh raba inay walaalahood dariska ula hadlaan hadallada intooda kale waxaa iskale beesha absame anigu laakiin waxaan dheerahay xoogaalnimo waxaan ku dhashay meesha la yidhahdo Wardheer waxaan rabaa inaan la hadlo suldaankan reer Biciidyahan ina Xaaji Cali Baalla ah iyo odaygii kale ee hadlay inaan la hadlaan rabaa waxaan garanayaa anigu waxaan jiraa 51 sano jiraa waxaan ku dhashay magaalada Wardheer xoogaalnimo waxaan dheerahay odayaashan absame ee kale xoogaalnimaan dheerahay waxaan garanayaa ayaga oo markuu ka cabaan ma jeerteen Wardheer wadada galaadiyeed ku fulan oo wada kale oo Wardheer geesaha ka soo gasha aan isticmaalin wadada galaadiyeed ku fulan meesha ay dhaanka ku furaan la yiraahdo goosayga guulaha oo meesha la yiraahdo cagaar weyne bowdkeeda halkaana subaxii laga raro oo cagaar weyne heerka xoolaha daaqsanaya cagaar weyne ay ka sheeyaan waxa la yaabisa ninku markuu suldaan yahay oo nin isina yahay Soomaali oo dhan meel jirto suldaan buu yahay asaga oo nin suldaana ah in uu taariikhdana been ka sheego wadan uusan lahayn uu sheego oo yiraahdo meesha la yiraahdo Wardheer wadada Meer Khalifa u baxda iyo wadada walwaal u baxda wixii bari ka jira harti baa iskale colaad buu abuurayaa ninkaasu dagaal buu wadaa waana suldaan waxaan ka codsanayaa suldaanka ina Xaaji Cali Baalla inuu arinta apologies ka bixiyo inuu raali agalay ka bixiyo wala yaqaan nin walba guriga wadan buu meel buu leeyahay nin walba meel buu ka soo arooraa wala yaqaan waxaana meeshan keenaysa in oo taariikhdeeda la muujiyo cali dhuux ereyadiisa kaliya ma qancin laayeen doqonkii ogaadana doolar laga qaad markuu leeyahay xagee jiray asaga doqonka hartida laga qaad doolar muudho anigu waxaan dhihi lahaa ninkan odayga hadlay ina Xaaji Cali Baalla arinta waa nin suldaan ereygii ma ahan mana uu soo dhaafin 14 sano ka hor ina Xaaji Cali Baalla anigu waan aqaanaa dhagax jab iyo dhaqaya boor xaga uma dhaaf 15 sano aragtida uu Wardheer ku arkay 15 sano ay u tahay asaga oo 15 sano ay tahayba aragtida Wardheer ku arkay haddana inuu yahay wadada Meer Khalifa iyo wadada la yiraahdo meesha la walwaal u baxda inta u dhaxaysa bari ka jirta harti baa iskale suldaanku wuu gafay baan leeyahay suldaanka beesha harti waxaan ka codsanaynaa inuu raali gal ereyga ka bixiyo waa qodobka labaad
waxaa kaaf iyo kala dheeriya in maanta nin ogaadayna gaafow dushiisa laga raray oo nin hartii uu leeyahay anaa iskale gaafow dushiisa oo ka guurle waa kaaf iyo kala dheeri colaad bay abuurhayaan nimankaasu dadku anigu hadda gaalkacyo waan degi karaa meesha la yiraahdo galaadi waan degi karaa guri waan ku yeelan karaa laakiin ninka iskale baan ogahay harti baa iskale harti laakiin inuu war dheer sheegto wuu degi karaa guryaha uga dhisan maamulka ay hadda hayaan walaalahood bay la degan yihiin waa la ogsoon yahay laakiin war dheer inay sheegtaan waa khalad waxaana ku filan gabayadii gubaya markay dib u fiiriyaan oo dib u sii shiiqsadaan waxaa ku filan war dheer inaysan lahayn artana amud la iska qaad ceelkii reer magal marka cali wuxuu leeyahay hasha laga walan idoor ka waraynayo wuxuu uga waraabsan waayay cali dhuuxash hadduu leeyahay meesha ayagoo intaa tixgelinayo walaalahana waa wada degannahay daris baan nahay ceelkii way degan yihiin guryaha ku leeyihiin way ku soo aroraan way ka cabaan waxaan ereyga kaga baxayaa suldaanku ereyga inuu apologize ka bixiyo oo raaligelin ka bixiyo marka uu leeyahay beesha Ismaaciil Gumcad loo leeyahayna hada suldaanku meel lama eegin baan u malaynaya gurigan afsama iskale ogaadeen baale makaahil baa deegaanka ku sii dambeeyay qoyska Ismaaciil Gumcad markuu la dhil garaynayo asagoo harti ah hada suldaanku meel badan buu ka gafay waxaan leeyahay suldaanku inuu arinta ka soo noqdo raaligelin ka bixiyo dabka uu shida haye uu rabo inuu harti iyo ogaadeen ka dhaxbeerana waa nin suldaana qof kasta oo bilow aadana oo meesha degan uu ku nool yahay qardi ayuu suldaan u yahay inuu halka ku soo goobo colaada joojiyaan suldaanka ka codsanaya waana ka baxay hadalka salaamu calaykum warahmatullahi marka koobaad waxaan Soomaali meeri joogto oo hambalyeynaya ciidul fitriga yaan u hambalyeynaya Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryahayaa Soomaali meeri joogtaba inuu nabad ka dhigo kana dulqaado culeyskan cuduradan hadda dadkii iyo adduunyadiiba kala xidhay inuu Ilaahay ka dulqaado iyo qabyaaladda waxaan meeshan ku fadhinaa odayaal iyo waxgarad absama ama kuumada oo ogaadeen waxaan rabnaa inaan ka hadalno arrin aan maalowta dhageysanay oo nin suldaana ka soo yeedhay suldaankana uu dhex taagnaa magaalada Wardheer xataa banaankeeda uu sa taagnayn Wardheer intuu dhex istaagay inuu gacanta intuu saa u taagay yiri wixii dhinacaas ah loo soo gudbi karo arrinta aad baan oo la yaabnay nin suldaana oo wadanka yaqaana oo taariikhda haya inuu magaalada Wardheer dhex istaago inuu dhaho dadkii oo wadanka ugu yimid ee uu og yahay inuu ugu yimid inuu dhaho ma soo dhaafi kartaan halka magaalada dhexdeeda ma iman kartaan xaafad kamida ma iman kartaan oo gacanta uu saa u taago aad baan oo la yaabnay waxa weeye waxaan leenahay dadka Soomaalidu taariikhdana way hayaan wadanka si loo kala degi jirayna way garanayaan annaguna waan ognahay waxa aad iyo aad wax loola yaaban noqotay ninkii taariikhda sida u hayay inuu qaabka u hadlo waxaan rabnaa inaan dadka u sheegno annagu nabad baan rabnaa hadaan dadka beesha degannahay beesha ogaadeen ama amsabe ama kuumadaba dhamaanteed dadka Soomaalida waxaan rabnaa in nabad kula noolaano laakiin waxaanan qaadan karin in dadkii intay is indhatiraan wadankii ay soo galeen ay degeen dadkii ugu yimaadeen inay haddana dhahaan dadkaasi meesha iyagu ma laha meeshaan ma imaan karaan inay dhahaan arrin aad iyo aad aan ula yaabna wey waxaan ognahay Soomaaliduna og tahay nin bari iyo nin galbeed nin bari baa gardaran Soomaalidu galbeed bay isu riixdaa wadankii marka ninka hadda Wardheer degan ee garanhaya meeshii uu degi jiray meeshii ku xoolo ka soo ururin jiray iyo meeshii aabihii awiyada ku aasan yihiin ninka garanaya iyo ninka maanta Wardheer yimid ee isagoo laga yaabo inuu isagoo isaga nool marta ugu horeysay hadee ninka marka garanaya meeshii laga soo uu degi jiray laga soo durkiyay aad buu maartay uu qaadan waaba ku dhacaya isagana waxa laga yaabaa inuu isleeyahay macnaheedu adeeg ka dhigo meeshan sidaad ku qaadan lahayd falankeeda samee waxa weeye Soomaalidu maanta ninkii 2 sano kula daaqa meeshii inuu ka qaato buu isku day waxa weeye wax garawsha oo Soomaali isu garaabaysa male waxaan marka anagu aan baaq u direynaa dadka aan walaalaha nahay harti ee wadankaana la degan anagu ogaadeena anagu waxaan rabnaa inaan nabad ku wada noolaano iyagana waxaan ka filaynaa sida aan anagu aaminsanahay walaaltinimada
inay iyaguna noola aaminaan walba meeshuu hadda joogo iyo meeshuu lahaan jiray inuu iimaansadaan anagu yaan u baaqaynaa dadkaas waxaan maaragtay kusoo gabagabeynayaa dadka soomaalida dhammaantood hay istixgeliyaan nin walba meeshuu degan yahay lagu tixgeliyo nin walba meeshii loogu yimaado ha lagu ixtiraamo iscaaburintan iyo dagaalkan la qalqaalinhayo iyo waxaan la samaynaya in la joojiya anagu yaan ku baaqaynaa waxaan kaloon markaan kusoo gabagabeynayaa dadka ogaadeenka ama absamaha ama hukuumadaha waddankaa degan waxaan u sheegayaa meel kasta oo ogaadeen degan yahay ama absamo degan yahay inay ninka jira salaxaad iyo ninka jira doollo iyo mir khaliifo inay isku mid ka yihiin cid ismaaciil gumcadlo la dhaho meel waddan iska leh ma jirto waddanka dadku ka dhexeeya ogaadeen ka dhexeeya absamuhu ka dhexeeya hukuumadda ka dhexeeya isku si bayna noo taabanaysaa hal taako oo waddankaa kamid haddii lasoo galo ogaadeen meeluu joogaba ninka baali jiriyo ninka qorxe jiriyo ninka shilaabo shabelle jira iyo ninka afdheeri jiraay isku si bay u taabanaysaa marka yaan lagu riyoonin oo dadka soomaalidu ayna ku riyoonin meel walba dadka xadka u xiga iyagu inay ishayaan yayna ku riyoonin waxaan u sheegaynaa in dadkaasi meeshay jiraanba inay ka murugaysan yihiin ayna og yihiin dulmiga lagu hayo qolada marta marka meesha u xigta waxaan baaq kaloo u diray aan kusoo gabageynayaa soomaalidu meelay jirtaba in dagaalka la joojiyo dagaalkii waagi dhowta hadda bisha Ramadaan ka dhacay salaxaad meesha dagaalku ka dhacay waxay ahayd degmada salaxaad raasa ma ahayn 82 kilomitir bay isu jiraan salaxaad gudaheedu dagaalku ka socday dadkaas waxaan baaq baan u soo jeedinaynaa dadka dhamaantii Soomaalidu in meel ku wada noolaadaan waxaan cambaaraynaynaa dagaalkaas waxaana leenahay siduu rasuulku sallallahu alayhi wasallam alfitnatu naa'ima la'ana Allahu man istayqadaha dagaalka dadkii bilaabay fitnadaas dadka badan ku dhinteen bilaabayna aad baan maaragtay u cambaaraynaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan leenahay Soomaalidu nabadgelyo ku wada noolaato maamulka deegaanka ayaan ku darayaa waxaan fariintaas aan u gudbinayaa maamulka deegaanka oo ugu horeeyo madaxweyne Mustaf iyo hogaamada nabadgelyada saraakiisha ciidamada waxaan u sheegaynaa in dadka Soomaalida si cadaalad ah oo mas'uuliyada in loo wada dhaqmo xuduudana la sugo dadka Soomaalida ee xadadka ka soo galaya ee hubka waaweyn soo qaadanaya in arintaas maartay il gaar ah lagu hayo waa in xadadka wadanka uu leeyahay dhammaan la wada sugo hubka ka soo galaya waa in la og yahay ciidamada ka soo galaya waa in la og yahay dad dabada u furan oo dawladda soo taageerayaan iyo dad masaakiina oo hubkii aan hub haysanin oo dawladdu ay halkii qori ku artay ka qaadayso yaa wadanka isku haya iyagii la dulminayay ee wadankii deegaanayeen laga qaadayay bay haddana dawladdu laga yaabaa inay si caburiso waxaan dawladda ugu baaqaynaa in xadadkana la sugo dadka Soomaalidaana sidii maaragtay nabada ay ku wada noolaan lahaayeen laga shaqeeyo amnigana la soo celiyo ilaahay subxaanahu wa ta'aalana in ku garab galaan yaan ilaah ugu baryaynaa intaasaan kusoo gabagabeynayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا حسن شيخ علي جيلا ليرهدا وحانا هينين كيانا ورغارسا ماشان كهلا هيانا وغارسا وحان دولا هيا جففكا سومالي دا اي نغو هايسو إلا إيا نغو لبلا بي 1957 أي سومالي دا نغو بلاودي khasaaro badan ayna gaarsiisay wadanka nagi hooye ee aabbo oo Kenya iyo Ethiopia Soomaali ay nagu dirtay in aan ka hadalno oo Soomaalida aan la hadalno ayaan meesha u fadhinaa annaga oo kumada ah oo absama ah oo ogaadeena waxaa jira in Republic of Somalia ay nagu dirtay dawladdanadii iyo wadankanagii hooye oo Kenya inaan la dagaalno Republic of Somalia inay nagu dirtay wadankanagii hooyo oo Ethiopia inay nagu dirto qoryo ay noo dhigto tiraa la dagaalo wadankeena geeliini iyo loodiini iyo gabdhihiini iyo wiilashiini la dagaala oo meesha ay sabab u noqotay xoolahanaga iyo ninqarkanaga inay ku baaba'een oo baaba'nay kadib hadda waxaan leedahay
haddii aan dib isku xasuusanay 40 sano kadib colaad iyo baabaa markaan ahayn in aan la heshiino waddankanagii hooyo Kenya ogaadeen haddaan nahay waddankanagii hooyo Ethiopia maanta aan soo afjarnay colaadii Ethiopia anaga naga dhaxaysay ay Soomaalida qoryaha noogu dhiibaysay waddankiina hooyo iyo dawladdiina iyo calankiina soo gub ayna lahayd inaan ka baxnay adeer si fiican iigu qor maanta waxaan leeyahay laba nin oo daarood Ismaaciil la hadlayaa ina cali baalaan la hadlayaa ina cali xabuuna waa la hadlayaa waxaan leeyahay ina cali baaluun waxa muqdisho laga soo abaabulayo ee farmaajo uu ku soo dhiibayo waan ka ognahay waanan aragnaa annaga inaan ma ognahay hamoodin imisa walaalaha oo ogaadeen meesha joogaan ku nool oo Kenya ka mid ah oo nabadgelyo ku nool oo raaxo ku nool oo farxad ku nool oo xornimo ku nool oo hoostanada joogo oo aqoonsiga jamhuuriyadda Kenya aan u goynaa oo siinay oo wataan doqon baa tahay adiga iyo ku soo diriba waxaan leenahay labada deris ee walaalaha ha isku dirin waddanka juqraafi buu leeyahay maab buu leeyahay nin walba waxay leedahay bulshada Soomaali meeshii gumaysigii aabihii iyo awowgii uu ugu yimid oo qoran yay leedahay waddanka ina cali xabulo aad habeenkii u soo karaysanayso taraktooyinka barkadaha qodi adeer ogaadeen bay u rajistaraysan tahay absamay u rajistaraysan tahay kuumaday u rajistaraysan tahay gadaal iskugu laabo aad baad u gabsan tahay walaalaha iyo dadkaada colaad baad u wadaay colaada ka daa nabadgelyo daris wanaagsan iyo iftiin bay leedahay nabadgelyada dadkaada u tacab mugdi iyo geeri iyo colaad iyo kala carar iyo qaxootinimo dadka ha u tabcin adiga intaasaan ku leeyahay ina cali baale waxaan leeyahay nin ugaasa baa tahay nin aqoon le baa tahay oday baa tahay daaroodoo dhan baad ugaas u tahay Ismaaciil gumad cadle iyo majeerteen ama harti saad ku siman waryaa ma doqon baa tahay mise markii lagu dhageysanayo ma waxaad moodi dadkii u soo aqoonin arrinta ayada waxaan u dib dhignay bisha Ramadaan iyo waxaan lahayn ragga waxgaradka ah ee majeerteen inay ka hadlaan oo yiraahdaan waa gaftay inay dhahaan yaa sugaynay midna ma dhicin marka waxaan garanay madaxweynaha iyo kuwa kale inay isla qabaan arrinta war waddanka rag baa leh adna waddan baad leedahay rag u tahay daris baan nahay waddankaada aniga uma soo hanqaltaagayo maxaa kayga kugu khalifay inaad maalinba meel dulkisato waxaan leenahay Soomaalida ogaadeen haddaan nahay ninkii nabadgelyo iga rabo labada gacmood baan ku soo dhaweyn ninkii walaalnimo iga rabo labada gacmood baan ku soo dhawaan ama yahawiye ha ahaado ama daarood ha ahaado ama dir ha ahaado ogaadeen walaalnimo ka rabo daris wanaag iyo nabadgelyo ninkii ka rabo labada gacmood baan ku soo dhaweynayna anagoo reerkeeya inaad ogaadeen layso ogaadeen waddan ka qaadato ogaadeen ka Kenyana aad nabad kula noolaato ma yeelayno jaahilnimada way tagtay jaahilnimada tagtay Kenya anaga iskale Ethiopia anaga leh colaadii ogaadeen aad noo tacabteen waa ka baxnay waa ka noqonay waddanka Ethiopia waa waddankanagi dalka anaga iskale waddanka anaga iskale Ethiopia waa dawladdanadi walaalayaal ka baxa colaada aad wadaan Soomaalida kale waxaan leeyahay oo labada daaroodka aan ku jirin xuduudadanada ha u soo aqal taagina xuduudadanada dulmiga ka daaya khayr iyo nabadgelyo lagama qaadayo geeri iyo xumaan baa laga qaadi mid kale badda Muqdisho iyo jigjiga intuu u dhaxayso waa la isku baahayaa wixii laga soo dejiyo badaha iyo dekadaha ogaadeen baa loo keenaa Kenya loo keenaa Ethiopia waddanka joogaa loo keenaa walaalayaal hadduu colaad dhacdo ma la heli ma la keeni aan mid ahaano Soomaaliya nin walba asagoo meeshii aabihii ogaa degan waa ka baxay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu الرحمن الرحيم أنا وحنا هاينين وقاعدين ومكاهيلة وحنا الله الله يا مكاهيل كوردير وحاد وقاعدين ودنك إن لقادن رب دلكي قاسان بيش مكاهيل وحنا وشيء عيبت كنا على هالك أي أمانت كنا على بين الليدهين
arrintu inayna ahayn ismaaciil gumcadle iyo majeerteen iyo mariixaan toona arrinta ogaadeen weeye wixii meesha ka dhaca dadka jooga ayaa maarata ceebteeda leh makaahilo waxaan idin sheegayaa beesha ogaadeen idinka idin dhowrayaan idinka wadanka degan dadka kale walaal bay yihiin garab annaga hadda gaaris joogo ogaadeenka gaaris baan anigu waxa la yiraahdaa buraale maxmed ismaaciil nin makaahil baan ahay waxaan u sheegayaa beesha makaahile dowlad degan ee wardheer degan in dalkii la qaadan haya qaas ahaan hadda idin sheegay ismaaciil gumcadle ma muuse ama haadam ismaaciil iyo ibraahiim iyo gacan weyn iyo habar samatalis waxaan u sheegaa inaan ahayn ismaaciil gumcadle arrinka maalinba nin baa lagu soo duulayaa arrinta ceebteeda idinka iskale ogaadeenka kale iyo kuubada garab bay idin yihiin arrinta iyada ah Ethiopia maanta colaade ay u hayno waan ka baxnay wadankiina dhacsada oo iska ilaaliya cadawga idinku soo duulaya dadka soo duulaya waxaan u sheegay beesha harti annaga gaaris joogna inaan xaaladda la soconna dadka harti la yiraahdo ama mariixaan ama hawiye ama qolo kasta inay la degan yihiin meeshan ay ku nabadgelyo ay ku haystaan ninka isku daya dal ogaadeen inuu dhamaanta waa qaadan iyo waan ku duuli asagoo wardheer degan gacan uu nin fafiiqahay meelaha waan arkay gacanta taagay arrinta laga fiirsada beesha harti xigtinimada iyo dhalashada islaamnimada hala fiiriyo hadii la waayo qabiil baan nahay maanta soo taagan dhulka anaga idima xalaalto wassalaamu calaykum hadalku ka baxay magacaygu waa Cabdiwahaab Xasan Dhuux odayaashan Gaarisa kuumade absame ogaadeen ee maanta meeshan fadhiya ka hadlayaan kamid ahay dhibka ka taagan gobolkan ogaadenya ama absame ama kuumade ayaan ka hadlayaa qaas ahaan gobolka Doolo magaalada Wardheer iyo geesaha ogaadeen oo dhan ama absame oo dhan waxaan u sheegayaa Soomaalida degan inaan walaalnimo ka rabno oo anagu haddaan nahay beesha absame ama beesha kuumade Soomaali sideedaba inaan dhib u ogoleen haddana inaan diyaar u ahayn waxaan u sheegayaa Soomaali khaas ahaan nimanka nala dhashay harti walaalayaal dhibka naga daaya mariixaan dhibka daa majeerteen walaal dhibka daa haddaad dhibka deen weydo walaalahana nahay jawaabteeda degdeg naga heli mariixaan haddaad dhibka deen weydo jawaabteeda degdeg naga heli walaalayaal walaalaan nahay waan wada dhalanay inaynu isxishmeynaan isku leenahay inaynu isdhibna isku melihin midda kale waxaan la hadlahayaa maamulka jigjiga qaas ahaan madaxweynaha Mustafa Cagjarow madaxweynihii gobolka adiga Mustafa Maxamed Cumar madaxweynihii gobolka adiga Soomaalida meesha joogtana aday ku hoos joogtaa qaas ahaan Soomaalida Ethiopia waa shacab aan hub gacan maran waay calanka dawladda adigu kuma mashay hoos fadhida hoostaada in lagaala baxo waa ceeb waxaan kuu sheegi xuduudii wadanka ilaali Soomaalidan dhulka way kala leedahay say u kala leedahay ugu kala xaqsi inta waxaan ku darayaa kuumade xuduudidiisa waa la ogaa baali gobolka Oromo iyo absame looma dhaxayn haddana waa loo dhaxeeyaa baali xabad baa ka socota xabadaas aan Oromo ahayn Soomaali kala xabada jooji dadkaana walaalo waayeen walaalnimo isugu soo celi arrintan kalena ee ogaadeen walaalayaal ogaadeen ka bilow absame gaarsi Cagjarow dadkii walaale sunakeen xuduudii wadankana ilaali waan ka baxay assalaamu calaykum wa rahmatullahi